wadaway markuu ugu horeysa markalaad waxaan leeyahay runtii horta dhaqan xumo u geynayso iyo waxa la jiri diin xumo in dhalinyarta Soomaaliyeed hadda boqolkiiba 99 inay yahuuda ku doolfeelmaan yani waxa keeni kara diin xumo ka jirta dalkeeni culamo badan wax bay jeediyaan maadaama hadda aan nahay dad muslima islaam ah haddana inaan sameeyno waxyaabo yahuuda laga gaar yeelay ama yahuuda ilayhiin dhaqamo badan waxa jira in madaxa in ka xiirano waxyaabo badan waxa jiro in kateenado badan in gashano sida yahuudi in isku maleeno يعني marka waxa leeyahay bulshada Soomaaliyeed looguma tala galin hada dad islaam waay inay sameeyaan dhaqanadaas xun ee qaabka daran ee ficilka daran Ilaahay subhanahu wa ta'ala looguma tala galin inay bulshada Soomaaliyeed haday nid muslim ah hadaysan ahayn gooni waay laga anaga waxaan ognahay dadka islaamka inay yihiin dad oo seem ah oo wanaagsan oo qiimo badan oo xishooda oo dugta salaada iska bixiya waxyaabaha wanaagsan ay ogaan sida soongo kale حجنا هذه هايستان إني آذان يعني وحياة بدن لقى روا جرتو قف إسلام كا سيد صلاة دو كله صوم دو كله وحياة كلن هذه هايستان ويان صدقة ويان لكن صدقة هذا زين هايستان حقوق مان إلى يكون مدهن بحي وحقوق هذا هايستان بحي هذا زين هايستنه صلاة وحياة لوجو صاري أوك يعني هذا حركة صد بدن إسلام كا شيئا أيو أو صلاة كتجايو وحياة بدن أو لقى روا أو ضدك يهود كده وفعلمي ضد بدن هذا حمق لاي إن الدين تكبحين وعكاني كرا dad badan inay aqeedadooda diinta ka baxaan hadan ku soo laabtaan ay dhahan diinta asal waa ka baxay hadan ku soo laabanaya waxyaabo Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo galiya maaha in diinta markaysa laga baxo hadan lagu soo laabto wax qiimo badan oo yeelanay ma ahan bulshada Soomaaliyeed culamadan way ka hadlaan hadan waxa rajeena in culamo badan ay ka hadlaan dadka diinta ka baxay hadan ku soo laabanay dawladdan aan ka hadlaynin yani dhahay diinta waan ka baxay guri hooyadoo kale hadan ku soo laabanay dhahay diinta ku soo laabtay yani miimad badan ma keenayso dad waxa arkaynaa in waxyaabo badan anaga inay qaldayn maskaxdeena tamaam inay sanayeen dad badan waxa arkaysa $1 in lagu siinaayo dinta ay kaga baxaan yaani waxa leeyahay $1 lagu siiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wajigiisa afaarujiso wax micna ma keenayso maalinta aakhir waa lagu weydiinayaa adduunkan hada ka tagto iftiinkan iyo ku sirin maanta hadii adduunka ka tagto waxa lagu weydiinayaa waxay tahay waxyaabaha qabsatay bulshada Soomaaliyeed waxa leeyahay boqolkiiba 90 maskaxda waxa ka dagay gaalada weeyaan qaasatan yahuuda cadow weeyaan waxa la dirirayaan دين الإسلام ما دام يليهن كلمة لا إله إلا الله أي دين ما فنسن لكن الإسلام هو مقطع طلع يرى بدن وحركيسا إن الله رهايو العكس قاضو دين تسكيك بح يعني مركو حركيسا إن جعل كاسي قال هذا إن السنة كأهين وحيابو أو دين تودي أما قلبي جودي حسلين هايو وعكتها هاي صومالي بدن فضولية أو دين تكسارة جعل كا هذا مربى جعل كاسي أرماسي كانان اليرت صوماليات